qisada waxaa ii sheegay nin Soomaali ah oo asagu yani de Sacuudiga wad garanaysaan kafiil ka yahay kafiil ma taqaanaa waa wax ilaahay ninka xoreeyay idinka waxa waaye nin baadiga mas'uul ka ah inuu nin mas'uul ka noqdo ayaad ku joogaysaa marka ninka kan nin sheekha oo Soomaali ah iga sheekayna wuxuu yiri sheekhan waxaan isku aragnay meel Jidda isagu mareer Madiina wuxuu yiri buu yiri sheekhu waxaan rabaa yani nin darawala oo aad baan mashquul ahay hooyaday iyo walaalaha iyo gaariga ku kaxeeyo haddana ahli diina oo waliba usra leh baan doonaya sheekhana waan aqaanaa buu yiri markuu saas yiri ana ba diyaaraba waaye marka anu magaalo kale aan joogaa buu yiri oo aad uga fogo januubka meel koonfurta khamiis bisheen meel buu yiri imaw Madiina isugu keen المهم tigirkii iyo wixii iyo lacagtii wixii buu siiyay buu halkaas inaan isugu tagno marka waxaan u imid buu inaan marka aan kafaalada sheekha ku wareego oo dabadeedna khidmadiisii galo Madiina iyo xaramka iyo khayrkiina aan ka faa'iideysto waan imid xaramkii baan sheekhi baan la kulmay sheekhi suu isii waday meel hotel u dejiyay buu lacag buu iga bixiyay oo yiri intaan kaaga jawaabayo ama haroos hawsha ka bilaaban halka ku jir 4 bilood ila ma hadlin buu baan ka sheekha waa sharxana waa yarka waa salaama oo iska tagaa oo iska ila ma hadlin 4 bilood oo hotelkii lacagta bixinayo kadib ayaa wuxuu yiri aan sheekhay saragni sheekhdii xaalkum huwa horta waraaqihii wuxuu ay sameeyay buu kafaaladii wixii magaciisii waxa dhan waraaqo ay dhameystiray shaqadiina bilaaban sugay ay mid wuxuu yiri buu agayso aniga hooyaday waliga intaan jiray hooyaday kelimada ay tiri kuma celin saas way haday tiraan naam khalad ha ahaato sax ha ahaato waligii kelimad dib ugu macalin marka wuxuu arinta markii aan kala hadlayo hore nin baa jira darawal u ah hooyaday oo reer wadankeena asalkiisu Mauritania yahay reer wadankeena ninkii marka xoogay markii dhaliisha ay timid oo inaan isagii aan iska sii daynay noqotay intii aan hawsha ku maqnaa adiga xaggaaga ninkii baa hooyaday ku cabtay oo yiri ma garanaysaa hooyo sidan waa marka aan soo noqday hawshaadiina ay dhamaanaysaa meel fiican ay noo marayso ay hooyaday waxay tiri waxaan doonaynaa ninkii hore inuu noo joogo ee iska daash ma oga buu yiri hooyaday inaan nin la soo ballamay oo lacag ka soo bixiyo oo kharaj galay oo adiga kula soo ballamay oo ma oga buu anigana caadadayda ma aha buu yiri kelimad ay tiri inaan u jawaababa yani ana hooyo meeshii nin baan u yeeranay oo xaaladdu halkaas ay maraysaa igama suurtooda buu waxay tira un baa soconay marka saas awgeed iga raalaho aniga meeshaas ma gali karo maadaama hooyaday tiri ninkii horaan rabnaa خلاص hadalkeeda soconay adigu marka lacagtana qaado Madiinana meesha iska joog sidii kale kula dadaalaya oo khayr laakiin booskaas ma gali karo marka suurtoobi lahayd in waqtigeena kale zamankan jooga waliba oo zaman tafatux iyo zaman ka furfurnaanshaha iyo dimuqraadiga iyo hadalka iyo wada dooda iyo alaabtan ay wada socdaan marka suurtoobi lahayd shay ku dhici kartaa in baan la hadalay in baan keenay hatta si wanaagsan hatta uga dhaadhicin kara ma doonayo waxay tiraan baa soconay marka wala la xuquuqda waalidiintu waa arin aad iyo aad u weyn inkii ilaahay waafajiyo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyo xabbigiisa iyo nasiibkiisa uu ka dhigo aabihi ama hooyadii oo daa oo u baahday ninkii ilaahay siiyo nicma ilaahay ku soo xirageliyay Abu Hurayra wuxuu oran jiray intuu dadku u yimaado hadithuni birajulin لم يسجد لله سجدة وهو دخل الجنة سؤال شاس ويدين جري ورن جري إيه شاقة نين هل سجودنا أن إلهي أتكنين هذا الجنة ذاك علي ولا جرن واي جري مركي لا جرن وايو أيو سو كجوابي جري وحورن جري إنه الأصيرم نين كان مجد عيسى وحاله ورن جري عمر ابن ثابت من بني عبد الأشهل من الأنصار أيو كذا شيء لقب كيسنا أصيرم أيال أورنجري سيدي أهل أرنتاني يوم أحد maalintii dagaalkii Uhud ninkan wuxuu ahaa cadow laduud markii hore nin aad u dhib badan oo islaamka dhibay buu ahaa tayib nimankiisa qoomkiisa reer bani abd ashalna waxay ku ogaayeen xumaantaasi ku ogaayeen Allah wuxuu qadaray maalintii Uhud inuu bada lahu al-islam islaamka u dhaahiro oo muuqday ilaahi baa qalbigiisa u sharaxay
ثم رسولك يمد فآمن ورميي بالله وبالرسول الله يا رسولك إيمان توحيد كيف كل واقع نطق بالشهادتين تقال كي نوص عضا رسولك ويديي مركي هرب يا رسول الله ميان إسلاما بس تقال كان هرك قلا حولي ما يحرت إسلام مركو إسلامين الظهور سيفتي سكاقات نينكي وحا قاري تقال كي دعوة الصعودة جراحة إيا سوق قاردي راوع با سوق قاردي رسولك وحا سوق قاردي نينكي العصيرم راوع با سوق قاردي راوع ذو حنبا سوق قاردي oo dadkii dhintay marka dagaalku dhamaaday ee la kala qaadanayay ee de wixii dhintay oo wixii bal dhaawac la raadinayay baa waxay arkeen qabiiladiisi min bani abd ashal oo ninkii oo dhaawac waxa la yiri miyuusan ninkani usayri maahayn ha oo maxaa meeshan keenay maanta waxa lagu yiri ma waxaad islaamka waxaad u timid nacaybsha dadka muslimiinta aad khiyaamayso mise raghbatan lil islam jacayl islamka aad jeceshay baad meeshan u timid wuxuu yiri bal raghbatan lil islam jacayl baa ay keenay hayse wax ku jira wuxuu yiri ilaahay baa qalbi ii sharaxay rasuulkan u tagay waan rumeeyay qisadii markuu rimankii qabiilkiisa u sheeray bani abdashalan nafta ka baxday rasuulkay u yimaadeen sallallahu alayhi wa alihi wasallam way u sheegeen arintu sida u dhacday rasuulku markaa wuxuu yiri innahu la min ahli aljanna ninkaasi ahlu jannadu kamid yahay su'aal baa laga yaabaa inay kugu timaado alaysat as-salatu shartan lil iiman min as-salatu ahayn shart iimaanka su'aal iimaan karta lan qofkan maba tukanin baa soo janna ku galay innahu lam yatamakkan min as-salati aslan yani salaada maba inuu suuroobin jaani suu ku tukada maba helinba iimaanki waa ku dhawaaqa hore ka cararay meeshina waa ku dhintay marka jaani suu ku tukada ninkan maba helin saas darteed baan la oran karaynin muxuu u tukan waa tayib rajul kana rasuulku wuxuu ku tilmaamay inuu yahay dadka ahlu jannada ah jannadana sida ku galay maalintii uxud waxa dhacday qisa yaab leh dadkii saxaabadii la laayay ee shuhadada ahaa markii la baarayay oo la sagoontinayay oo inta dadkii la aruuriyay shuhadadii madiina dadkii qaar soo aadeen yaa gabar ansaariyad abaatimid oo kacaysa nin baa ka hor yimid markaasuu wuxuu waxaan kaaga tacsiyeenayaa aabbaha markaasay tiri aabbahay u kaadiye nabi maxamed ka waran sallallahu alayhi wasallam markaasuu waa fiican yahay nin kala ka hor yimid markaasuu wuxuu yiri zawjkaagii ninkaagii baan kaaga tacsiyeenayaa say tiri ninkayga u kaadiye nabi maxamed seebuu yahay sallallahu alayhi wasallam wuu fiican yahay mid kala ka hor yimid walaalkaa baan kaaga tacsiyeenayaa waxaa la gabadha waxa maalinta la dilay aabaheed iyo zawjkeedii iyo walaalkeed iyo laba ay dhashay baa la dilay markaasay tiri rasuulka ilaahay seewu yahay saalay wuu fiican yahay waxay tiri tusa ma degayo illa nabiga aan arko nabiga loo keenay sallallahu alayhi wasallam markay aragtay bay tiri kullu musibatin ba'daka jalal musiibo kasta oo adiga aan ahayn way fuudahay rasuulka ilaahay Allahu akbar dadka musiibooyinku ku dhaceen oo dadkay jeclaayeen ay dhinteen hooyada ay dhimatay aabaha uu dhintay walaalka uu dhintay odayga zawjkaagii uu dhintay xaaskaagii ay dhimatay caruurtaadii ay dhinteen bal jacaylka qofkaas aad u qabto iyo naxdinta aad ka naxsan tahay waxaad barbar dhigtaa jacaylka aad nabiga u qabto sallallahu alayhi wasallam iyo nibashadii nabiga naxdinta aad ka naxaysa isbarbar dhig taasay ahaayeen ila hadhihi daraja ma gaaray inagu bal waxaa dhici jirtay nabarka nabiga lagu wada inuu ku dhaco inuu qof saxaabi isu dhigo Allahu akbar maanta nabiga waa la caaya waa la dacaayadeeyaa ma jira qof inaga naga mid ahoo jecel qalbigiisa oo dhahaya inta nabi maxamed la caayi lahaa aniga hal ay caayo inta nabi maxamed la dacaayadeyn lahaa aniga hal ay dacaayadeeyo inta diinta nabi maxamed la duri lahaa aniga hal ay duro dhahaya ma jira maalintii uxud markay saxaabadii nabiga ka yaaceen oo ka faydmeen oo dagaalkii xumaaday oo nabiga ay ku soo hareen laba saxaabi kaliya Talha ibn Ubaydillah iyo Sa'd ibn Abi Waqqas ay ku soo hareen Talha wuxuu arkay nabigii oo dadkiina ka faydmeen
qurayshtiina intay ogaadeen nabigu meesha uu jooga ay isu habar wacdeen buu arkay Talha ibn Ubaydillah markaasuu wuxuu isiri sideed nabiga ku difaaci kartaa markaasuu asaga dhan buu nabigu ku hagoogtay dushu ka fuulay nabiga sallallahu alayhi wasallam asaga dhan nabigu dusha ka fuulay sallallahu alayhi wasallam markuu nabiga saas uu ugu hagoogtay leebkii ku socday nabiga asagu ku dhacaa warankii ku socday asagu ku dhacaa seeftii ku socotay asaga ku dhacdaa ilaa saxaabadii kale ay yimaadeen saxaabadii kale markay yimaadeen oo nabiga lagu soo aruursamay buu dhulka ku dhacay oo nabigu uu yiri sallallahu alayhi wasallam awjaba Talha maanta wuu waajibsaday janno maanta Talha la tagay walaalkiin qaada saxaabadu waxay dhigi jireen ninkii raba inuu arko qof shahiid ah oo dhulka dul socda Talha ha arko heerkaas ay gaareen waxa yaab leh baabkan marka laga sheekeynayo qof saxaabada la mid ah ma jiro tusaalayaal waxaan soo qaadanayaa jacaylka ay nabiga saxaabadu u qabeen oo ka turjumayay amarkiisa say u qaadan jireen amarka nabiga markii la sheego nabigu u dhoosan sameeya say u qaadan jireen waxa kamid ahaa maalmaha kamida ni Julaybiib la yiraahdo oo saxaabi ah oo shaqadiisana la yaso oo shaqo aan fiicneen ka shaqeeya xoogaana marka la fiiriyo fool xun oo la yiri qof dumar ma haweysato oo dumar kastoo doona ay diideen baa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam dumar kastoo doona way diiday waa nin fool xun oo shaqo aan fiicneen haysta shaqooyinka dadka lagu yaso haysta oo iska rafaadsan nabigu u yimid sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri rasuulka ilaahayow wuxuu yiri nabiga ay ma guursiyaa ii guurinaya rasuulka ilaahay gabdhii waa ay diideen nabigu wuxuu yiri anaa ku guurinaya orod intaad u tagtay reer ansaar guriga intaad tagtay oo gargaraacdid waxaad tiraahdaa nabiga isoo diray ee gabadhiina ii guuriya waa gabadhii gabdhaha ugu qurxooneed oo ugu qiimaha badneed oo ugu wanaagsaneed oo nin walba uu hunguriyeynaya markaas la yiri albaabka Julaybiib baa taagan nin baa taagan waa la furay hooyadeed baa ka furtay markaas wuxuu yiri nabiga isoo diray sallallahu alayhi wasallam wuxuuna ugu yiri orod reerka u tag oo gabadhooda ha ku guuriyeen bal amarka nabiga sallallahu alayhi wasallam maanta wuna dhex yaala ahadiistii nabiga amarkiisii diintiisii shariicadiisii wana dhex taale bal muqaarane oo barbar dhig markaas waxay tiri maamadii intay naxday waxay tiri Allah haduu Abu Bakr soo diri lahaa ama Umar ama Uthman ama Ali uu soo diri lahaa maxay ga dhici lahaa man laakiin ninkan mayan gabadh u guurin karaa odaygii bay la tashatay odaygii oo asna yaaban gabadhii baa hadalkii maqashay waxay dhaheen balukaad gabadha aan weydiinay oo dhahanay seed u aragtaa xaaladan markaasay gabadhii aadeen markay gabadhii la hadli rabeen bay gabadhii soo booday markaasay waxay tiri ma waxaad rabtaan in aad celisaan qof nabigu uu soo diray sallallahu alayhi wasallam amarka nabiga miyaan celinaynaa ii guuriya bay tiri markaas loo guuriyay markaasay iyo ku barwaaqowday fiiri ilaahay baa u barakeynay waa ninkii sallallahu alayhi wasallam shahiid ka noqday oo qisayso ay dheereed waxaad fiirsan marka amarka qofkaas inta uu la eg yahay amarka nabiga sallallahu alayhi wasallam inta uu leeka waxaan ku soo khatimayaa qisadan saxaabi la dhihi jiray Abdullah ibn Mas'ud oo aad wada taqaanaan yaa maalin wuxuu maqlay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo khudbad jumca u taagan oo dhahaya dado fariista ijlisu ayuha nas banaanku marayay albaabka masaajidka soo gaarin buu qoraxda fariista nabiga arkay sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo gal wuxuu waxaan diiday nabiga oo dhahaya fariista inaan khilaafo warkiisa oo soo socdo inaga maanta nabigu meeqa amar buu nasiya fariiso gacanta wax ku cun qaabka u fariiso qaabkaas guriga u gal qaabkaas musuusha u gal qaabkaas quraanka u akhri qaabka u tuko qaabka wax u sadaqayso qaabkaas u seexo qaabka u guurso qaabka u mucaamalood qaabka wax u gado amarka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo tirada ka batay laakiin intee wax la eg baasaan u qiimeynaa su'aalaha isweydiin dhowr su'aalood weliga ma ooyday jacayl aad nabiga u qabta sallallahu alayhi wasallam intaad xasuusatay ilma ma ka daadatay nabiga ma jeclid sallallahu alayhi wasallam weliga
amarka nabiga sallallahu alayhi wasallam markii aad maqasho intuu kula weynaaday oo aad ku faraxday ma qaadatay adoo ku faraxsan oo uu kula yahay wax adduunka iyo dhulka iyo samadaba ka weyn heerka ma gaadhay markaad maqashid qisaskii nabiga iyo saxaabada intee wax la eg bay kula gaadhaa ma jeceshahay oo ma ka fakartaa mar walba inaad maalinta aakhira nabiga arki doonto iyo in kale ثوبان أو موليه النبي صلى الله عليه وسلم ما النبي أجي سوى قيران أو دارسون نبي وحكيري محاك الدوري دارس ثوبان أو قرر كاوس لبدلي رسولك إلهي أو مرك أنا كأرق يا وحشودا قلبي جيبا يا حماضة أنا قلنا وين مروجودا مركاسا ونك أنتوا عتوي أو مروجودي مركان كأركبان دجا مركاسا وحنا حسوس تيبويري قيامة مرك أي نعض أو جنة الله قالوا هدي أن جنة قالوا horta hadaan jannada gal inaan ku arkin maba ku arkay hadaan jannada gal tawan ka baqay waxaan kala ka baqay hadaan jannada galo inaan ku arki waayo sababtoo ah adiga darajadii nabiyada iyo anbiyada ee sara lagu geynaya anigana waan ka hoos maraya inaan ku arki waayo oo isku level aan noqon weyno baan ka baqay markaas uu murugooday oo wajigii isbedelay oo uu caatoobay ila hada alhad nagu arnay qof wiil gabar jecel oo leeyahay wuu caatoobay gabar ninkay jecel loo diiday oo leeyahay way caatowday way isbedeshay laakiin qof nabiga jacaylkiisa isla bedelay oo muruga ka muuqato markaas uu nabiga u jawaabay waxa soo degtay ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وصدقت هذا النبي جعشه صلى الله عليه وسلم oo qalbigaaga marka nabiga xasuusto uu isbedelayo oo wajigaaga uu isbedelayo oo uu qofka kula qiimaha badan yahay oo hooyada iyo aabaha iyo canugaaga iyo xaaskaaga inay dhintaan oo maalkaagu baabao aad nabiga uu kaala weyn yahay nabigu sallallahu alayhi wasallam oo hal amar ama xadiis oo nabigu bixiyay oo inta kaala weyn yahay waxa tahay qof mu'min ah baa tahay hadaada naftaada iyo ehelkaaga iyo maalkaaga la isku daray aadanay maxamed ka jeclayn إيمانك وحبك كما جرو نبي عمر بكديدي أذيك اللي قام يليه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذلك الإمام مسلم في صحيحه وحكوري عائشة رضي الله عنها وحيتري جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها وحايتي متقبر مسكينة أو وحبان هيسن أو لبقى بدوضو يري وضطه markaasay baahi baa haysay ilmihii soo kacaysato Aisha oo la timid Aisha radiyallahu anha waxay tiri waxaan siiyay saddex xabo oo timir ayaan siiyay waxa ay u heshaa waxay noqdeen saddex xabo oo timir ah ma ahan cantoobo ma ahan shan xabo ma ahan 10 xabo saddex xabo ayaan u helay oo aan siiyay bayt fa'atat kull wahidatin minhuma tamra baahida haysa daraadeed labadii ilmood oo yaryarka ahaa mid kasta oo kamida xabad baysiis warafa'at ila fiha tamratan litakulaha xabadii saddexaadna waxay damacday inay cunto korbay u qaaday hooyadii weeye fastat'amaha ibnataha labadii gabdhood ayaa labadoodii xabba intay cuneen hooyo oo aan wali cunin xabadeedii ayay weydiisteen inay siiso ku dhagay fashaqqat at-tamrata allati kanat turiidu an ta'kulaha baynahuma xabadii ay doonaysay inay cunto hooyadaas ayay labadoodii masna u kala goysay oo labadoodii ay siisay ayaduna ay ka qad fa'ajabani sha'nuha baytida Aisha radiyallahu anha waxa aad iyo cajab galiyay arinteeda hooyadaas iyo naxariisteeda iyo daqnashada ku jirta ayaan aad iyo aad ula cajabay ayadoo baahan ayay xabadiina u kala goysay markaas ay nabiga u sheegtay Aisha radiyallahu anha oo tiri haweentaas maanta sidaas guriga timid xaaladeeduna sidaas ay ahayd markaas nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wassalaam qad awjaba Allahu laha bihima al-jannah labadaa gabdhood sababtood ayaa ilaahay janno ugu waajibiyay inay janno ilaahay ay gasho aw a'taqaha bihima min an-nar wa shakum min ar-rawi ilaahay ama wuxuu ugu xoreeyay labadaa gabdhood sababtood
ayaa ilaahay naar uga xoreey intaas naxariista ah oo ilmahaas baahan ay u daqnatay ayaa ilaahay janno ugu waajibiyay subxaanahu wa tacaala bahaa'imta iyo xayawaanka in loo naxariisto oo waxa weeyaan loo turo janno ilaahay baa lagu helaa subxaanahu wa tacaala wuxuu nabigu yidhi calayhi الصalaatu wasalaam baynamaa rajulu yamshi biطariiq ishtadda calayhi اlcadash fariiso masaajidka fariiso ka fariiso masaajidka ninkaas socda fariiso ka fariiso masaajidka xilli uu socday nin waddada uu marahaya nin socdaal ah ayaa waxaa ku darnaaday baa nebigu yidhi calayhi الصalaatu wasalaam oonkii baa ku darnaaday aad ayuu u haraaday fawajada bi'ran fanazala fashariba uma kharaj ceel ayuu helay ceelkii buu gudaha u galay biyihii buu ka cabay markuu ka wabxayna waa ka baxay faidaa kalbun yalhath ya'kulu haraa min alcatash meeshii waxaaba taagan ceelka bannaankiisa ahaa ey baa taagan eygaasina wuxuu cunayaa ciidduu cunayaa haraad iyo oon daraaddiis ayuu ciidda la cunayaa markaasaa ninkii hadlay markaasuu yidhi laqad balaga haada alkalba min alcatash midlu aladii kaana balaga bi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay eygan waxaa taabtay oonka xaggiisa iyo haraadka wixii aniga i haystay baa asagana haysta waa u daqnaday wuxuu nebigu yidhi fanazala albi'ra famala'a khufah ceelkiibuu intuu ku laabtay ayuu wuxuu soo buuxiyey khufkii ayuu soo buuxiyey khufku waxa weeyaan maqaar wax ka samaysan sida sigisaanta oo kale ah fa amsaka fiih khufka afkiisa ayuu intuu qabtay ayuu kor ola soo baxay fasaqa alkalba eygii buu bannaanka ugu shubayaa maantoo dhan biyaha yarkaa meel ugu dul shubahayaa ilaa eygii uu waraabiyey oo uu dharjiyey wuxuu nebigu yidhi calayhi الصalaatu wasalaam fashakara allaahu lahu fagafara lah ilaahay baa ku shukriyey qofkii sidaas sameeyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa u dembi dhaafay dembigiisiina ilaahay waa dhaafay waana ku shukriya ilaahay subxaanahu wa tacaala bahaa'imta oo loo naxariisto dadka masaakiinta oo loo turo oo la caawiyo oo la taageero waxaa lagu helaa wax la helo waxa ugu qaalisan waa janno ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dembi dhaaf uu ka horeeyo ilaahay inuu kuu dembi dhaafo jannana uu ku geeyo waxa la raadiyo waxa ugu qaalisan weeye bahaa'imta iyo masaakiinta iyo ilmaha yaryarka iyo agoommaha waxaa lagu raadsadaa janno qofkii ilaahay wax uu siiyey oo dhaama waa inuu xasuusnaadaa mar walba uu masaakiinta u naxariista